waa b b c oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebookga iyo barta aynu ku leenahay internetka ee b b c somaly com galab wanaagsan dhegaystayaal waa 18 bisha Oktoobar. Afrikada bari waxa ay dul taagan tahay iminka 5tii oo gow ah. Qodobada aad barnaamijka dunida iyo maanta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin kadib duqeyntii boqolaalka qof ay ku dhinteen isbitaalka ku yaala Gaza. Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta gaaray Israa'iil, haddaba muxuu ka yiri weerarka isbitaalka? I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Soomaaliya oo ka hadashay weerarkaas ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo Israa'iil oo iska fogeysay. Waxa kale oo aad maqli doontaan saddex xagalka la yiraahdo bayla, dangoroyo, garacad oo mid ah, isku shuban, gumbax, xaafuun oo meel kala ah, iyo dhinaca kan buurta tan oo marajo iyo af urur iyo meesha la yiraahdo ceel la helay iyo midagale iyo rad iyo laako iyo saddex xagal baa ugu nugul. waa digniino hor leh oo laga muujinayo duufaanta El Niño. Puntland ayaa sheegtay meelo u nugul oo ka mid ah goboladeeda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dunida iyo maanta oo soo saaray Maxamed Baashi Khaliif. aniga oo Saxnuun Axmedna waan la socodsiin doonaa, balse aynu ku bilowno wararka caalamka oo inoo akhriyo aadan maxamed cabdi saalamiin oo istuudiyaheena London toos uga jira. maasanid Saxnuun. madaxweyne Biden ayaa sheegay in sida loo sheegay qaraxii talaadadii ka dhacay cisbitaalka Gaza uu ahaa mid ay ka dambeeyeen Falastiiniyiinta oo aanay Israa'iil ka dambaynin. Mr. Biden ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sidaasi u sheegay, waxaana uu u sheegay ra'iisul wasaaraha in Maraykanku uu sii wadi doono la shaqaynta Israa'iil iyo saaxiibada gobolka oo dhan si looga hortago musiibo badan oo ku dhacda dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. hadallada Bidenna waxaa ka mid ahaa: sida aan horey u sheegayba, waxaan sii wadi doonnaa taageerada Israa'iil ay ku difaacayso dadkeeda. waan idinla shaqaynaynaa idinka iyo saaxiibada gobolka si looga hortago musiibo kale oo ku dhacda shacabka aan waxba galabsan. dhinaca kale, Xamaas ayaa ku eedaysay Mr. Biden in uu si indhala'aana ugu eexday oo u taageeray Israa'iil, waxaana ay sheegtay in Washington ay qayb ka tahay waxa ay ugu yeertay xasuuqa. dhacdadan ayaa keentay carada sii kordhaysa ee shucuubta gobolka, waxaana la baajiyey shirmadaxeedkii la qorsheeyey ee Mr. Biden iyo madaxda Carabta. ururka Xamaas ayaa ku adkaystay in duqaymaha dhanka cirka ee Israa'iil ay samaysay ay sababeen dhimashada, balse taasi waxaa beeniyay afhayeenka militariga Israa'iil. reer Admiral Daniel Hagari ayaa ku eedeeyey Falastiiniyiinta in gantaalkaasi si qaldan ay u rideen, isaga oo sheegay in caddaymaha jireed ee goobta uu ka dhacay qaraxaasi ay taageerayaan sheegashadiisa. waxa uu sidoo kale soo bandhigay sida uu sheegay cod telefoon oo dhex maray maleeshiyada Xamaas oo isku sheegaya in gantaal laga soo tuuray qubuuraha u dhow uu si qaldan u dhacay. wariyaha BBC-da Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in natiijada ka soo baxday baaritaanada qaraxa ee Gaza, daanta galbeed la haysto iyo guud ahaan bariga dhexe ay u badan tahay in sheegashada Israa'iil aan dheg jalaq loo siinin oo waxba laga soo qaadin ama la diido. bariga dhexe waxaa ka soconaya sidoo kale dibadbaxyo looga jawaabayo qaraxii ka dhacay cisbitaalka Gaza. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Israa'iil ee caasimadda dalka Urdun ee Ammaan, iyadoo dibadbaxyadaasi ballaaran ee ka soconaya bannaanka safaaradda Faransiiska ee Tunis ay sidoo kale isku soo baxeen. dhinaca kalena, dadku waxay cambaaraynayaan dalalka reer galbeedka ee taageera Israa'iil. waxaa ka jira xaalad taasi la mid ah Turkiga iyo Ciraaq oo ciidamada Maraykankuna ay sheegeen inay qabteen 2 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo bartilmaameedsanayay ciidamadooda. madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Asiisina waxa uu sheegay in shacabka Masar ay bannaanbixi doonaan iyagoo malaayiina haddii bannaanbax loogu yeero. halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa BBC. madaxweyne Putin ayaa cambaarayay gantaalada casriga ah ee ATACMS ee Washington ay geysay Ukraine,
isagoo ku tilmaamay qalad kale. isagoo ka hadlayay booqasho uu ku tegay shiinaha iyo waxa uu sheegay in hubkaasi uu halis dheeraada ku abuuray ruushka, laakiin waxa uu ku adkaystay in ATACMS aysan wax ka bedeli doonin xaaladda jiidda hore ee dagaalka. waxay ku soo beegantay maalin uun kadib markii Kiev ay garaacday 2 saldhig oo ciidamada cirka ruushka ay ku leeyihiin Ukraine la haysto, iyadoo markii ugu horreysayna loo adeegsaday gantaalahaasi. Mr. Putin ayaa wadahadal waxa uu kula yeeshay magaalada Beijing dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, iyagoo ka wada qayb galaya shir madaxeedka Shiinaha ee mashruuca kaabayaasha caalamiga ah Belt and Road. hogaamiyaha ruushka andhehe ayaa waxaa saaran waaran ama warqad soo qabasho ah oo ka timid maxkamadda caalamiga ee dembiyada, kaas oo lala xiriirinayo Ukraine, laakiin Shiinuhu kama mid aha saxiixayaasha maxkamadda. ugu dambayntiina aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka ayaa meel mariyey sharci burinaya ansixinta xukuumadda Moscow ee mamnuucidda tijaabada nukliyeerka ee caalamiga. akhrintii ugu dambaysay, akhrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka, ayaa cod aqlabiyad ah lagu ansixiyey. cid diidayse maanay jirin ama ka hor timid. madaxweyne Putinna waxa uu ka codsaday duuma in ay ka noqoto xayiraadaasi si ay dib ugu eegto mowqifka Maraykanka. Washington waxay saxiixday heshiiskaasi, laakiin weli ma aanay hirgelin. halkaasan ku celiyo. Washington way saxiixday heshiiskaasi, laakiin weligood ma aanay ansixin. heshiiskaasi oo la saxiixay 1996, kaas oo mamnuucayay tijaabooyinka la xiriira qaraxyada nukliyeerka, kaas oo ujeedadiisuna ay ahayd in la dhimo ugu dambayntiina la baabi'iyo hubka nukliyeerka. si sharci ah uma dhaqangelin qodobkaasi, laakiin waxa uu noqday qodob ka dhana tijaabada nukliyeerka. ruushkuna waxa uu sheegay in ay dib u bilaabi doonaan tijaabada marka ay Washington iyaduna ay samayso. warkii oo intaasi ku eg aan dib u ka celiyay Saxnuuni stuudiyaha magaalada Nairobi. waa uu mahadsan yahay Saalamiin oo nala socodsiinayay wararka caalamka. markana u diyaar garooba dhegaystayaal qaybaha kale ee barnaamijka. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, aynu ku bilowna ee weli waxaa socda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin, kaas oo galay toddobaadkiisii labaad. madaxweynaha Maraykanka ayaa maanta gaaray Israa'iil isaga oo taageero u muujiyey Israa'iil sida uu ku sheegay hadal uu jeediyey. sidoo kale dad shacab ah ayaa la sheegayaa inay ku xayiran yihiin waddo isku xirta Masar iyo Gaza oo lagu magacaabo Rafax. haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa isha soo mariyey ee ku saabsan dagaalka Israa'iil iyo xaaladda shacabka Maxamed Baashi Khaliif. saxnuunow, dagaalka Gaza weli waa socdaa, waxaana sii kordhaya khasaaraha dhinacyada gaaraya. wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay in tan iyo markii duqeymaha cirka ee Israa'iil ay bilowday la dilay dad tiradooda ay gaarayso 3,478 qof, dhaawacuna uu cagacagaynayo ilaa 12,000 oo qof wax ka badan. Dr. Ashraf Al-Qudri oo afhayeenka wasaaradda caafimaadka Gaza waxa uu sheegay in kororka dhaawacyadu ay yihiin kuwo mar walba siyaadaya. arrinta kale, duqeyntii xalay ee cisbitaalka Al-Ahli, wasaaradda caafimaadka Falastiin waxay sheegtay in 471 qof ay dhinteen ilaa 300 wax ka badan ay dhaawacmeen. duqeyntaasi Israa'iil iyo Xamaas midba kale ayuu ku eedeeyey. waxaa kaloo sii kordhaya cambaaraynta loo jeedinaya falkaas oo ka imaanaya dalalka carabta iyo dunida inteeda kale. imaaraadka, Baxrayn iyo Morocco oo aynu ognahay in dhowaan ay caadi ka dhigeen xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil ayaa cambaarayn xoogan u jeediyey marka uu soo baxay warkan duqeynta ah. Sacuudiga ayaa sidoo kale cambaareeyey. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa ku tilmaamay weerarkaasi xadgudub cad oo sharciga caalamiga ka hor imaanaya. dhanka Israa'iil, milatariga Israa'iil ee loo yaqaano IDF waxay sheegeen in gantaalo ay dhinaca Israa'iil ku soo ganeen kooxaha Xamaas iyo Jihaad al-Islaami ay fashiliyeen inta ugu badan. waxaa kaloo Israa'iil ay iska fogeysay in ay ku lug lahayd duqeynta cisbitaalka Al-Ahli ee Gaza, kaasoo khasaare weyn dhaliyey oo dhimasho iyo dhaawaca. waxaa kaloo Israa'iil ay sheegtay in dhinaca Xamaas ay bilaabeen mawjado weerara oo ay ku qaadeen dhinaca
xamaas war ayay soo saartay iyaduna waxay ku eedeysay maraykanka iyo reer galbeedka inay mas-uul ka yihiin dagaalka ka dhanka rayidka osama xamdan oo sarkaal ka tirsan xamaas ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay lubnaan waxaana uu sheegay in maraykanka iyo galbeedku ay mas-uul ka yihiin si buuxda sida uu sheegay dagaalka ka dhanka dadka rayidka ee khaza baasho waxaa kaloo naga warantaa dadka israa'iil ay ku amartay inay ka guuraan gudaha khaza si ay uga badbaadaan duqeymaha iyo weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay sheegeen inay xamaas ku sugan yihiin xageeba xaalkoodu maraya saxnuunow weli xaalad adag ayaa ka taagan marinka rafax oo ay dhooban yihiin kumanaan kun oo reer falastiiniina oo ka baxaya ama ka baxsanaya colaadda iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku xayiran yihiin gawaari gargaar u sida dadka rayidka ee khaza hase yeeshee weli laguma guulaysan in marinkaasi la furo madaxweynaha masar oo qaahiro ku qaabilay ra-iisul wasaaraha jarmalka olif sholz ayaa ku celiyey inaysan qaadi karin dadka reer falastiin ee kasoo qaxaya ama kasoo baxaya dhinaca khaza waxaana uu yidhi ma doonayno inaanu soo dhoweyno dadka reer falastiin waxay ku sugnaan doonaan halkooda mana qaadi karno culayska intaa leeg ayuu yidhi madaxweynaha masar isagoo sii hadlayena waxa uu tilmaamay in ay tani tahay mid u baahan in caalam ahaan loo galo oo arrintan laga wada hadlo sidoo kale saxnuunow goor sii horreysay ee baarlamaanka u k xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi james cleverley waxa uu xaqiijiyey inuu dib ugu laabanayo bariga dhexe isagoo la ogyahay in toddobaad ka hor uu booqday israa'iil waxaa la fahamsan yahay inuu mar kale uu aadi doono masar iyadoo la tixgelinayo booqashooyin kale oo uu ku mari doono qatar iyo turkiga dhammaan dadaaladaas waxaa la doonayaa in wax laga qabto xaaladda adag ee bini'aadanimo ee qase ka taagan isbitaalka al ahli ee duqayntu xala ku dhacday ayaa dowladda israa'iil iska fogeysay eedaynta la xiriirta in iyagu ay mas-uul ka ahaayeen haddii aan dib idin xusuusiyo xaalku siduu ahaa xalay kadib duqayntaas shanqarta dadka iyo sidoo kale gawaarida ayaa la maqlayaa madaxweynaha maraykanka oo maanta gaara israa'iil ayaa ka hadlay duqaynta ku dhacday isbitaalkaas isaga oo sheegay in xogaha uu daawaday marka uu isku celceliyey ay u muujiyeen in weerarkaas aysan geysan israa'iil sidoo kale waxauu kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo uu sheegay in si buuxda uu maraykanku u garab taagan yahay israa'iil dagaalka hadda ay ku jirtana uu garab ugu yahay wararkii ugu dambeeyey ee booqashada baydhan iyo hadalkii uu jeediyey waxaa inoo haya cusmaan cabdi xasan madaxweyne biden ayaa booqashadiisa ku sheegay inay tahay mowqifka maraykanka ee colaadda uu ka taagan yahay iyo in uu u muujiyey israa'iil xilligan adag sida uu u garab taagan yahay shir jaraa'id ay isaga iyo netanyahu wada qabteen wuxuu ku cambaareeyey xamaas isagoo ku tilmaamay inay beegsadeen dad rayid ah ayna israa'iil ku qaadeen weerar bahalnimo ah duqayntii xalay ee isbitaalka al ahli ayuu biden ka weeciyey mas-uuliyaddeeda israa'iil wuxuuna sheegay in dhinacyo kale ay ku lug leeyihiin aad ayaan uga murugaysanahay ugana caraysanahay qaraxii shalay ka dhacay isbitaalka khaza marka loo eego waxaan aragnay waxay u muuqataa in koox kale ay samaysay oo idinku aydan ahayn cidda ridday laakiin waxaa jira dad badan oo taa rumaysan marka waa inaan ka soo kabanno waxyaalo badan sidoo kalena aan dhiiri gelinno caawimada dadka reer falastiin ee aan waxba galabsan kuwaasoo dhexda u galay dhibaatada arrinta weerarka israa'iil oo uu soo hadal qaaday wuxuu sheegay in xamaas ay geysteen wax uu ku tilmaamay inay gowraceen 1,300 oo qof oo ay ku jiraan 30 Maraykan ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wuxuu sheegay in booqashada biden ku yimid israa'iil ay wanaajinayso niyadda israa'iil xilligeedii ugu adkaa oo ay wajahdo netanyahu wuxuu ku celiyey inay ka go'an tahay inay dabar jaraan xamaas wuxuuna sheegay in xamaas ay la mid tahay isis dhinaca kale boqorka urdun ayaa ka digay in xiisadda ay ku sii fido gobolka sanadkan durba waa sanadkii ugu dhiig daadashada badnaa ee falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta inta la xasuusto aad bay uga sii darnaan doontaa haddaan la joojin dagaalka iyo aafada bini'aadamku abuurayo waa inaan joojinnaa dagaalka gobolka oo dhammi waxa uu qarka u saaran yahay inuu god ku dhaco taasina waxay nagu riixaysaa wareeg cusub oo dhimasho iyo burbur ah khatarta ah in dagaalku uu fido waa dhab qiimaha ugu muhiimsan ayaan dhammaanteen ku bixin doonnaa dadaalkeenna oo dhan waxaa loo baahan yahay inaynu isugu geyno si aan u hubinno in aan halkaas xaaladdu gaarin
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa iyana ka hadashay weerarkii lagu qaaday isbitaalka alahli ee ku yaala khaza waxa ayna si kulul u cambaaraysay duqayntii xalay lala beegsaday isbitaalkaasi halkaas oo la sheegay in dad ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen. dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo haween, iyadoo dowladda soomaaliya ay ku sheegtay qoraalka ay soo saartay in mas-uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday ay Israa'iil qaadayso. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ku qornaa af Carabi waxaa lagu yiri waxa ay Israa'iil ka sameynayso Gaza waxaa loo arkaa xadgudub bareere ah oo aan sabab lahayn iyo fal ka hor imaanaya xeerarka caalamiga ah iyo xeerarka qiyamka bani'aadantinimo oo ku jiro sharciga bani'aadanimada. Soomaaliya ayaa Israa'iil ugu baaqday inay ixtiraamto sharciga caalamiga ah isla markaana si shuruud la'aan ah oo degdeg ah loo joojiyo dagaalka. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la furo wadooyinka gargaarka si mucaawino loo gaarsiiyo dadka reer Falastiin ee u baahan gargaarka degdega ah. haddaba dadka qaar ayaa waxay isweydiinayaan hadalkan ay sii daysay dowladda Soomaaliya inuu yeelan karo cawaaqib diblomaasiyadeed maadaama cidda iska leh mas'uuliyadda ay hadalhayni ka taagan tahay Israa'iilna iska fogeysay. maxamed cabdirasaaq waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wax yar ka hor ayaan istuudiyaha ku wareystay anigoo ugu horreyn weydiiyey sida hadalkan saameyn uga dhalan karto. waxay la tahay hadalka ay soo qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ama Soomaaliya dowladdeeda ay shaacisay inuu yahay hadal sax ah oo xaq ku taagan. laakiin dad badan waxay isweydiinayaan maadaama wadamadii Soomaaliya kaalmeyn jiray qaarkood ay la jiraan Israa'iil sidoo kalena ay eedayntan ka weeciyeen dowladda Israa'iil halkaas iskhilaaf soo ma jiray. wallaahi waxaa mudan dhowr qodob horta in la xuso. waa marka koowaade arrinkan in aysan Israa'iil ka dambaynin runtii anigu hadda ma aaminsani. sidaa la socota ayaamahan intuu dagaalka socday wararka waan fiirsanaynay waa la soconay xaaladda marba meesha ay marayso. cisbitaalada qaarkood waa loo digay waxaana u digay ciidamada Israa'iil oo yiri ka baxa oo digniintaas waa horeysay. in digniintaas markaa kadib dadkii u baahnaa in la daryeelo dhaawaca maatiday iyo wixii meesha joogay oo dhan markaas haddii ay ka bixi waayeen la duqeeyo waxay aad iyo aad caqligeenna aan ka heli karnaa in arrintaas ee Israa'iil ka dambaysay. waxaan kaloo ognahay markii laga soo gudbay dagaalkii 7 bishan Oktoobar ee Xamaas ku qaaday Israa'iil wixii ka dambeeyay Israa'iil ay si toos ah u duqeynaysay shacbi caadi ah oo waxaan aragnay cimaarado dhan oo diyaarado lagu duqeeyay oo dhulka la simay. labadaas ba haddii aan logic ama wax caqliga geli kara aan u fiirsano waxay u eg tahay arrinkan in Israa'iil ay ka dambaysay. taas ka sokow waxaad ka hadashay in dowladaha maaragtay qaarkood Israa'iil la saftay ay yihiin dowlado mucaawino siiya Soomaaliya oo mase u adag tahay arrinkaas in Soomaaliya ay runta uga sheegto. horta Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waa baahanahay bakti looma cuno oo maaragtaa arrinkaas dartiis looguma maaragtay garaabi karo ama loogama aamusi karo in maaragtay aad tahay waddan caawimaad u baahan. 2 xiriirka caalamiga ee dalalka ka dhaxeeya waa mid runtii wajiyo badan leh waxna la isku diidi karo waxna la isku raaci karo. arrinta Israa'iil iyo Falastiin u dhaxaysa meesha ay ka taagan tahay wadamada qaarkood iyo meesha Soomaaliya ay ka taagnaan karto waa wax loo isku diidi karo laakiin arrimo badan oo kale ay weli naga dhaxayn karaan xiriir ahaan. ma qabo in taas darteed looga hadli waayo oo looga aamuso. midda saddexaad wadamada sheeganaya inay Israa'iil ay maaragtaa aysan gardarnayn marka ma isleedahay wax cawaaqib ah ay Soomaaliya kala kulmi kartaa hadalkii ay sii daysay. waa suurtagal laakiin maxay noqon kartaa ma laga aamusi karaa arrinkan. waa inaa cabirtaa adigu haddii aad ka hadashay wax saxana sheegtay
waxaad aaminsan tahay aad sheegtay sharciga ka hadashay xuquuqda bini aadanka ka hadashay haddii lagugu ciqaabo taas dee waa midaa markaas aad diyaar u tahay. soomaaliya xiriirka kala dhexeeya falastiin sidee buu istaraatiiji u yahay ma nuugu macnayn kartaa si kooban? wallaahi xiriir hadda maaragtay heer diblomaasiyadeed ah oo Soomaaliya iyo Falastiin ahaan ka dhaxeeya oo hadda jira anigu hadda ma garan karo. intii dowladnimadii burburkii ka hor xafiiskan PLO way ku lahaan jireen Soomaaliya xafiis way ku lahaayeen annaguse nooma aysan joogin safaarad oo kale laakiin Falastiin waxaa nagala dhexeeya waxaa kala dhexeeya inta ku jirta jaamacadda carabta waxaa nagala dhexeeya inta ka dhexaysa dalalka islaamka oo dhan waxaa naga dhexeeya maaragtaa masjidka qudus iyo islaamnimada iyo bini aadannimada ugu dambays waxaasoo dhan baa nagala dhexeeya intaasaa horta hadda aanu u tari karnaa. Soomaaliya iyadaa hadda teeda ay taagan tahay oo dhibaatooyin badan oo ay la kulantay laakiin inay ka hadasho inay maaragtay u doodo waa yeeli kartaa. isla wararka Israa'iil iyo Falastiin dagaalka u dhaxeeya iyo duqeyntii isbitaalka Al-Ahli ayaan weli ku guda jirnaaye dowladda Jabuuti ayaa iyana cambaaraysay duqeyntii xalay lala beegsaday isbitaalka Al-Ahli ee magaalada Gaza halkaas oo dad gaaraya 471 ruux ay ku dhinteen. warbixinta ay soo saartay dowladda Jabuuti waxaa isha soo mariyay warbixintaana inooga haya wariye Maxamuud Cusmaan Bulxan oo ku sugan gudaha Jabuuti. waxaa maalintii 12aad galay dagaalka u dhaxeeya dowladda Israa'iil iyo ururka Xamaas. dowladda Jabuuti ayaa waxay ka hadashay mowqifkeega kadib weerarkii Israa'iiliyiintu xalay ku qaadeen isbitaalka magaalada Gaza. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Jabuuti ayaa waxa ugu dhignaa sidan: dowladda Jabuuti ayaa waxa ay si kulul u cambaaranaysaa duqeyntii xalay lala beegsaday isbitaalka Al-Ahli ee magaalada Gaza halkaas oo dad badan oo kor u dhaafaya 500 oo qof ay ku nafwaayeen. dowladda Jabuuti waxa ay si adag u cambaaranaysaa xasuuqa aadka u baahan ee lagu beegsaday isbitaalkaasi Gaza halkaas oo ay ku dhintay dad aan waxba galabsan. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti oo ku qornaa af Carabi ayaa waxaa lagu yiri sidoo kale sidan: waxa ay Israa'iil ka geysanaysaa Gaza waxaa loo arkaa weerar argagax leh oo lagu bartilmaameedsaday caruur iyo haween waxba aan galabsan. weerarkan waa xasuuq dagaal oo ka dhana dadka reer Falastiin sababtoo ah waxa uu ka hor imanayaa xeerarka caalamiga iyo xeerarka qiyamka bini'aadantinimada. dowladda Jabuuti waxay ugu baaqaysaa Israa'iil inay ka foojignaato beegsiga dadka shacabka aan waxba galabsan. dhanka kale beesha caalamka ayaa waxa ay ugu baaqday Jabuuti in aan la kala xigeen weerarkan iyo dagaaladan ka socda Falastiin waxaana ay ugu baaqaysaa in la eego xeerarka iyo qiyamka dembiyada dagaalka ee ka dhana xuquuqda aadanaha. sidoo kale dowladda Jabuuti waxay hore u sheegtay mowqifkeega ku aadan tan iyo markii uu bilaabay dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Xamaas. Jabuuti waxay ka walaacsan tahay walaac xoogana ka muujinaysa xaaladda isbedeshay ee ka jirta dhulka Falastiin ee la haysto. waxay dowladda Israa'iil ku haysataa mas'uuliyad darro sii socota oo gaardaro iyo xadgudub joogto ah oo xuquuqda dadka reer Falastiin iyada oo goobaha barakaysan ay ku jiraan masjidka Al-Aqsa inta badan ciidamada boolisku ay xiraan halkaas oo iska horimaadyo ay ka dhacaan markaste. Jabuuti waxay ku adkaysanaysaa in loo baahan yahay tallaabo degdeg ah oo ay beesha caalamka. waa uu mahadsan yahay Maxamuud Cusmaan Bulxan oo ah wariye ku sugan Jabuuti warbixintaasna ay nala socodsiinayay. markaana haddii aan taariikh dib ugu laabanno innagoo weli ku guda jirna wararkii Israa'iil iyo Falastiin 17kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1973 ururka OPEC oo ay ku bahoobeen wadamada shidaaleyda ah waxay sheegeen in cunaqabatayn shidaalka ah ay saarayaan ciddii ay u arkaan inay Israa'iil taageerayso. xilligaas dunida carabta go'aankooda Falastiin mid ayuu ahaa 49 sano kadib. waa sidee mowqifka dunida carabta ee dagaalka ka socda Gaza? xasan xayle oo arrimaha carabta iyo caalamka ka faalooda ayaa inooga warramay. horta dagaalkaas Oktoobar 73
waxaa layihahdaa Anwar Saadaada masalan qorshihiisa ciidamada masaarida iskale sidiisa walo Suuriyana ay ku jirtay dhinaca Urdunna xataa laga soo galay laakiin dagaalkaas waxaa layihahdaa Saadaada waqti dheer ka shaqeynayay waxaa layihahdaa wuxuu u tagay boqor Faysal Allah yarxamo wuxuu u sheegay asoon waqti siin in uu dagaalkaas diyaargarowga dagaalkaas uu ku jiro laakiin waqti gaar ah ma uusan sheegin markaas uu tagay masalan boqoshada uu ku tagay Riyaad inta u dhaxeeyay August September u dhaxeeyay October dagaalkii waa tuu dhacay aan ogsoonahay 7deedii iyo 6deedii waa tuu dhacay dagaalka barigaas runtii carabtu waxaa moodaa in ay isku meel wax ka arkayeen xiriirka masalan wadamada batroolka soo saara iyo Mareykanka wax jilicsan oo ahaa walow ma soo gaarin heerka maanta si fiican waxaad moodaa dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaan saddexdaba in wadamada batroolka soo saara oo wadamada khaliijka loo yaqaan intooda badan inay Mareykanka ay maanta aad ugu xiran yihiin iyo reer galbeedka masalan taas ma aysan jirin barigaas waxay ahaayeen sida xalku sida la sheego isdhaafsiyo ahaa ganacsiyo ahaa walow Sacuudiga oo xiriir yani qoto dheer la sameystay markuu dagaalka dhamaaday Mareykanka marka waxaa moodaa in xaaladii aysan xaaladii ahayn hadda dunida carabtu way kala qaybsan tahay dagaalka hadda socda mowqifka dalalka carabta sida reer galbeedka ma muuqda marka hadda say wax u jiraan horta barigaas waa tii aan niri wadamada carabta sibay wax isugu raaceen gaar ahaan boqor Faysal Allah naxariis wuxuu lahaa influence ku lahaa wadamada khaliijka oo batroolka barigaas soo saara oo Sacuudiga waxay positionkeeda aad u xoog badnaa wadanka kuweeda isugu yeeray wasiirada dhinaca batroolka carabta ama khaliijka gaar ahaan ay go'aan ka soo saaraan in Mareykanka haddii uu la safto ama uu si gaar ah la safan yahay Israa'iil inay xiriir ka fiirsan doonaan batroolkana ay masalan beeciisa ay 5% dhimi doonaan barigaas waxaan ogsoonahay Malik Faysal intaas kuma ekaysan dagaalkii marka uu dhacay wuxuu u yeeray safiirka Mareykanka ee Riyaad jooga wuxuu si warqad ka kooban tahay ama ay ku qoran tahay 3 qodob oo la yaab leh maartay 3 qodob waxay kala ahayn dhaqso dul maro in Mareykanka go'aan ka gaaro yani masalan ama uu dib uga laabto taageerada uu taageeray Israa'iil aan ahayn Sacuudi wuxuu sameyn doonaa 5% ma aha 10% ayuu kor u qaadi doonaa batroolkiisa asaa ugu xoog badnaa ilaa hadaba asaa ugu xoog badan tan labaad waxaa suurtagal ah in xiriirka Mareykanka iyo Sacuudi u dhaxeeya ay Sacuudigu ka fiirsado xiriirka natirkiisa waa arrin sahlan ma aha tan saddexaad waxay ahayd qodobka saddexaad wuxuu ahaa haddii aan dalabka Sacuudiga oo labadaas qodob ka kooban aan dhaqso aysan u muuqan Sacuudigu in uu go'aan kale oo gaari doono go'aankaas kale macnaheedu waxa waaye batroolka dhan uu ka jari doona oo ficil waa tii oo batroolka ka jaray waana loo ogaa dhibaatadii Ameerika ka dhacday waxaa la yiraahdaa 2 saac ay dadku waxay u taagnaayeen in dhowr galan oo batrool ah ay helaan safaf dheer oo mararka qaarkood la tirinayo ilaa 2,000 oo saf oo baabuur oo saf ku jirta safkay misan waxay ka helayaan ay tahay wax yar oo batrool ah barigaas xaaladda Mareykanka aad u xumaatay adduunyada dhan isku shirtay gaar ahaan wadamadii barigaas taageeray oo cadeystay inay taageersan Israa'iil oo dhan misan carabta batroolka goodi maanta waa runtaa su'aashaas waa su'aal u baahan jawaab maanta maxaa jira maxaa isbedelay isbedelkaas anigu waxaan isleeyahay waa ku tiirsanaanta ay aad 100% ugu tiirsan yihiin Mareykanka hadda duqeynta ku socota qase rajada maxay tahay ay sugayaan dalalka carbeed in halkaasi xal ka yimaado runtii wadamo badan aad moodaa inay bedelayaan mowqifkooda masalan shalay waxaan maqlaynay Spain oo 100% ku tilmaantay Israa'iil in ay gardaran tahay tandiimkan loo yaqaan Hamasna oo san wax gaar ah oo hadda dhibaato oo iska caabin ahayn oo masalan qaladaadka Israa'iil inuu u yahay jawaab waxyaabihii Israa'iil soo wada bilhii dambe inuusan ka badnayn oo reaction ka dhacay masalan wax iska caabinta ku jira oo san ka badnayn waxaan garan karnaa wadamo dhifaa masalan oo ku soo haray Mareykanka iyo wadanka hadda aan joogno oo Britain xataa Britain naftigeeda fiican aad u sii fog uma dhaliilayso Hamas sida ka muuqato gaar ahaan mudaharaadkii maalin dhoweed dhacay oo London intaasoo 100,000 oo qofood isugu soo baxeen wuxuu saameynaa siyaasadda iyo loolanka xisbiyada masalan dalkan ka dhaxeeya iyo isbedelka masalan siyaasadeed waa ka gaabsiyay mid run ahaantii waxaan garan karnaa madaxda Labourka oo barigii hore lagu yaqiinay inay qadiyada Falastiin guud ahaan taageersan yihiin hogaamiyahooda maanta haysato waa la ogsoon yahay maadaama uu muujiyay dhinaca Israa'iil inuu jiro Jeremy Corbyn naftiisa mudaharaadka iyo ka hadlay waa ka warqabna dadyoogii reer Yurub ama masalan bulshooyinka jooga galbeedka ma aysan siisan siyaasadaha ay dowladahooda ciyaarayaan waa u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Xasan Xayle oo ka faallooda arrimaha dalalka carabta iyo sidoo kale caalamka oo u waramayay Cusmaan Cabdi Xasan halka weli aad nagala socotaan dhageystayaal waa BBC
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. warar kale ayaa inoo soo socda balse markan geeska Afrikada Bari waxa ay dul taagan tahay xilliyadii aad mar kale dib u dhageysan jirteen warka caalamka oo rogaal celisa waxa mar kale la diyaara Salamiin. madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in sida loo sheegay qaraxii talaadadii ka dhacay isbitaalka Gaza uu ahaa mid ay ka dambeeyeen Falastiiniyiintu ee aysan ahayn Israa'iil. Biden waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo uu sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono taageerada uu la garab taagan yahay la shaqaynta Israa'iil iyo saaxiibada gobolka oo dhan si looga hortago musiibo badan oo ku dhacda dadka rayidka ee waxba galabsan. dhinaca kalena Xamaas ayaa ku eedeysay Mr. Biden inuu si indhala'aana uu u taageeray oo uu u eexday Israa'iil waxaana ay sheegtay in Washington ay qayb ka tahay waxa ay ugu yeertay xasuuqaasi. Xamaas ayaa ku adkaysatay in duqeymaha dhanka cirka Israa'iil ay samaysay ay sababeen dhimashada balse taasi waxa beeniyay afhayeenka militariga Israa'iil. Reer Admiral Daniel Hagari ayaa ku eedeeyay Falastiiniyiinta in gantaalkaasi si qaldan ay u rideen isagoo sheegay in cadaymaha jireed ee goobtaasi uu ka dhacay qaraxu ay taageerayaan sheegashadiisa. waxa uu sidoo kale sheegay uu soo bandhigay waa sida uu sheegay cod telefoon oo dhex maray maleeshiyada Xamaas oo qiratay in gantaalkaasi laga soo tuuray qubuuro u dhow oo si qaldan markaasi u dhacay. hase yeeshee wariyaha BBC-da ee Israa'iil ka soo warramaya ayaa sheegay natiijada ka soo baxaysa baaritaanada qaraxaasi ee Gaza daanta galbeed la haysto iyo guud ahaanba bariga dhexe ay u badan tahay in sheegashada Israa'iil aan dhegjalaq loo siinin oo markaasi aan waxba laga soo qaadin ama la diido. bariga dhexena waxaa ka dhacaya oo ka soconaya dibadbaxyo looga jawaabayo qaraxii ka dhacay isbitaalka Gaza. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Israa'iil ee caasimadda dalka Urdun ee Ammaan iyadoo dibadbax ballaaran uu ka soconayo bannaanka safaaradda Faransiiska ee Tunis. sidoo kalena dadku waxay cambaaraynayaan dalalka reer galbeedka ee taageera Israa'iil waxaana jira xaaladaasi la mid ah oo iyaguna ka jira Turkiga iyo Ciraaq oo ciidamada Maraykanku ay sheegeen inay qabteen 2 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo bartilmaameedsanayay ciidamadooda. madaxweyne Putin ayaa cambaarayay gantaalada casriga ah ee ATACMS ee Washington markaasi ay geysay Ukraine isagoo ku tilmaamay qalad kale. isagoo ka hadlayay booqasho uu ku tagay Shiinaha ayuu sheegay in khudbadaasi uu ku sheegay in hubkaasi uu halis dheeraad gelinayo Ruushka laakiin wax weyn aanu ka bedelaynin jiida hore. ugu dambeyntiina aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa meel mariyay sharci burinaya ansixinta xukuumadda Moscow ee mamnuucida tijaabada nukliyeerka ee caalamiga ah. aqrintii ugu dambeysay aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka ayaa cod aqlabiyad ah lagu ansixiyay ciddii danimaanay jirin. madaxweyne Putin waxa uu ka codsaday Duuma in ay ka noqoto xayiraadaasi si ay dib ugu eegto mowqifka Maraykanka. Saxnuun. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Salamiin oo mar kale inoo akhrinayay warkii caalamka. wararka kale ee inoo soo socda barnaamijkeenana waxaa ka mid ah saddex xagalka la yiraahdo Bayla, Dangoroyo, Garacad oo mid ah isku shuban Gumbax Xaafuun oo meel kala ah iyo dhinaca kan buurta tan oo Maraje iyo Af Urur iyo meesha la yiraahdo Ceel la helay iyo Midagale iyo Rad iyo Laako iyo saddex xagal baa ugu nugul. waa digniino hor leh oo laga muujinayo duufaanta El Niño oo Puntland ay sheegtay inay uga baqdin qabto magaalooyin u nugul oo ka mid ah goboladeeda balse dowladda Kenya ayaa baahisay magacyada iyo xogta 35 xubnood oo ay sheegtay inay ka tirsan yihiin argagixisada loona malaynayo inay ka dambeeyeen weeraro ka dhacay gudaha Kenya. magaalo xebeedka Lamu weeraro ka dhacay ayaa ah kuwa ugu badan ee raggan ay dowladda Kenya u aaneynayso inay ka dambeeyeen. warbixinta ay soo saartay dowladda Kenya waxay noo haysaa Foosciid. waxaa ka mid ah xubnaha la baadigoobayo Soomaali, Tanzanian, Jarmal, Ingiriis iyo Bangladesh laakiin waxa u badan Kenyaan. waxaa ka mid ah kuwa looga shakisan yahay inay qorsheeyeen miinooyin lagu aasay wadada dhinaceeda kuwaasi oo sida la sheegay shacab Kenyaan ah ku dilay wadada weyn ee isku xirta Lamu iyo Witu Garsan. waxaa kale oo ka mid ah kuwa loo haysto inay qayb ka ahaayeen weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada cirka ee Maraykanka ee Mandi Bay ee ku yaala deegaanka Lamu sanadkii 2020.
wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in kooxdan oo uu ku tilmaamay argagixiso khatar badan ay agaasimeen falal ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay gobolada Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay abaalmarin lacageed siin doonto ciddii xog waafi ah ka keenta raggan la doondoonayo. Al-shabaab ayaa gudaha Kenya gaar ahaan gobolada waqooyi bari iyo gobolka xeebta ka geysatay weeraro bilooyinkii lasoo dhaafay. Kooxda ayaa gudaha Soomaaliya ku wajahaysa weeraro saf ballaaran ah kuwaasi oo ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay doonayso inay ku ciribtirto. haddaba mid ka mid a dadkii la baahiyey magacyadooda ee ku jiray warbixintan ay baahisay dowladda Kenya waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo ah nin muddo badan deganaa gudaha Kenya oo lagu eedeeyey weeraro ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. si aan wax uga ogaano ninkaas dhalinyarada ah waxaa xogtiisa si dhow la socotay Faadumo Macalin Abuukar oo haatan igula sugan stuudiyaha. Faadumo, maxaan ka naqaanaa ninkan? saxnuunow, ninkan Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waxa uu markaasi dhashay bilowgii 80meeyadii waxauna ku magac dheer yahay Ikrima. waxaa loo aqoonsan yahay ninkan argagixiso lagu tilmaamo mid ka mid ah ayaa la yiri taliyayaasha uga halista badan ee ururka Al-shabaab. waxaa la sheegay in uu udub dhexaad u ahaa qorsheynta weeraro dhowr ah oo argagixisanimo uuna mas-uul ka ahaa xiriirinta Al-shabaab iyo weliba Al-qaacidada ee jasiiradda Carabta. waxa uu markaasi ninkan ka soo jeedaa waa Soomaalida Kenya. waxaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa weeraro dhowr ah oo ka dhacay dalkan Kenya sida weerar lagu beegsada garoonka diyaaradaha ee ismaamulka Mandera gobolka waqooyi bari Kenya bishii Abriil ee sanadkii 2013. waxaa la isla dhexmarayay inuu ku lug lahaa sidoo kale qorsheynta weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada tan Nairobi ku taala sanadkii 2013 gaar ahaan isagoo ka mid ahaa raggii falkan geystay. maadaama Ikrima uu yahay nin waqtigiisa ugu badan ku qaatay Kenya waa nin kala rumaysan yahay inuu qorsheeyay weerarkii Westgate Mall ayaa la yiri iyo waliba weeraro kale oo qorshayaashooda markaas iyagu la abaabulay. Ikrima waxa uu ahaa bartilmaameedkii aanan lagu guuleysan ee Oktoobar 2013 ee ka dhacay. waxa uu markaasi qayb ka ahaa ninkan bartilmaameedkaasi oo ka dhacay Baraawe isla markaana ciidamada badda ee Mareykanka ay ku qaadeen magaalada Baraawe ee Soomaaliya. sanadkii 2014 wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay shaacisay abaalmarin gaaraysa ilaa 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah ciddii keenta xog ku saabsan Ikrima inay markaas siin doonto. horjoogaha markaasi ninkan Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo Ikrima loo yaqaan waxa uu sidoo kale ahaa bartilmaameedkii ugu muhiimsanaa ee Mareykanka ee markaasi xiliyadaasi. ninkan sida aan sheegnay waa muwaadin Kenyan ah balse asalkiisa Soomaali uu yahay. waxaana ka mid yahay Soomaali badan oo Kenyan ah iyo waliba dagaalyahano kale oo ajaanib ah oo iyagu markaasi la sheegay in ay ku biireen. nin ay saaxiib ahaayeen oo codsaday inaanan markaasi la aqoonsan oo magaciisa aynan shaacin ayaa goor hore waxa uu BBC-da u sheegay in Ikrima xogo badan uu kula wadaagi jiray xaafadda Isliya magaalada Nairobi ee loo yaqaano ee Muqdishada yar. waxa uu sheegay in qoyska Ikrima ay ahaayeen dad dabaqada dhexe ah ayna u yimaadeen Nairobi inay markaasi ku noolaadaan iyagoo ka yimid magaalada Mombasa ee dalka Kenya. labadan dhalinyaro ayaa waxay markaas wada cuni jireen ayaa la yiri muqaadaraadka sida qaadka waxayna si wada jira u cabi jireen nooc ka mid ah xashiishka ka hor inta uusan Ikrima tagin sanadkii 2004 si uu magangeliyo Norway markaasi ugu helo. laakiin saxnuuno kuma uusan guuleysan inuu ogolaansho ka helo Norway. BBC-da ayaa ogaatay in horaantii sanadkii 2007 Ikrima uu markaasi waqti ku qaatay UK. marka ninkan waxa uu waqti ku qaatay gaar ahaan magaalada London oo si gaar ah uu u jeclaa baararka shiishadaha markaasi lagu cabo. lama oga halka laga tashkiiliyay Ikrima iyo waliba qaabkii uu ugu biiray balse saaxiibkii ay wada joogeen Isli ayaa sheegay in Al-shabaab ay si gaar ah ninkan uga qorteen gudaha Kenya. haddana sanadkii 2008 waxa uu markaasi Ikrima kula kulmay caasimadda Soomaaliya ee markaasi Muqdisho. waad mahadsan tahay Faadumo Macalin Abuukar oo inala socodsiinaysay xogta ku saabsan Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo ka mid ah 35 xubnood oo dowladda Kenya ay baahisay xogtooda shakhsiga ah iyadoo oo sheegtay inay ku daba jirto abaalmarin ay sii doonto ciddii xog waafiga ka keenta.
markana wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaga iyo wafdigiisa laga soo galbiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa ee dalka uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. waxaa la sheegay in socdaalka wasiirka difaaca ee Kenya ku tagay Soomaaliya uu daaran yahay arrimo la xiriira iskaashiga labada wadan ee ay iska kaashanayaan la dagaalanka al-shabaab oo labaduba sheegeen inay dhibaato weyn ay ku hayaan ururka al-shabaab. wararka la xiriira booqashada wasiirka difaaca Kenya ee Soomaaliya waxaan ka wareysay goorsii horeysay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo iigu waramay qadka Lucy Life. saxnuunow saaka ayuu wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo ay la socdaan saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kenya waxa ay ka soo degeen gegida diyaaradaha ee Aadan Cabdulle waxaa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan militariga ee Soomaaliya. halkaas kulan gaar ah ayay ku yeesheen labada wasiir deetana wuxuu u gudbay magaalada bartamaheeda ee xarunta madaxtooyada ayuu tegay wasiir Ducaale. halkaas waxa uu kula kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha iyo wasiirka gaashaandhigga waxay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan dagaalka ka dhanka al-shabaab, amniga gobolka. war kooban oo ay madaxtooyadu soo saartay waxa uu sheegay sida uu madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay wasiirka difaaca ee Kenya in uu meel wanaagsan marayo howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ay dowladdu ku jirto. waxa uu sheegay in al-shabaab oo laga saara gobolka ay u tahay arrin muhiima oo nabadgelyada gobolka ka qayb qaadanaysa. waxa uu sheegay in dalalka gobolka oo dhan ay tahay inay iska kaashadaan dagaalka waxa loogu yeero argagixisada. markaa dabadeed wasiirka gaashaandhigga ee Kenya Aadan Barre waxaa qada u sameeyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. qadadaas intii ay socotayna war kooban oo uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen amniga gobolka saxnuunow. arrintan amniga ee dhowrka jeer ay soo wada hadal qaadeen madaxda dowladda ee la kulantay wasiirka difaaca Ibraahimow maxay daaran tahay, maxay si gooniya la rabaa in diiradda lagu saaro? dabcan saxnuun waxaad ka wareysaa ciidamada Kenya waxay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika gaar ahaan howlgalka kumeel gaarka ah ee hadda la yiraahdo ADMIS markii horena loo aqoon jiray AMISOM. waxay joogaan gobolada Jubbooyinka. dabcan waxaad ogtahay in Soomaaliya ay isu diyaarinaysa inay amnigeeda 2024 bisha December ay kala wareegto ciidamada midowga Afrika ka socda. waad ogeyd in dhowaan tira ciidamada ah oo dhowr kun gaaraya in qorsho ahaa in wadanka laga saaro laakiin dowladdu ay dalbatay in arrintaasi dib loo dhigo. marka dabcan Kenya waxay ka mid tahay dalalka ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya. waxay dowladda ugu fadhisaa arrin muhiima dagaalka ka dhanka al-shabaab xilligan oo dowladdu ay doonayso in ay isu diyaariso gulufka labaad ciidamadeedu ay doonayaan inay al-shabaab uga saaraan dalka. waxaad ogtahay in dalalka safka hore ay dowladdu markii hore kula heshiisay inay wejiga labaad ka qayb galaan. marka dabcan arrimahaasoo dhan iyadoo ay taagan yihiin ayaa safarkani yimid. marka labada dhinac waxay aad uga wada hadlayaan waxa xiga hadda iyadoo wejigii labaad dagaalka aan weli bilaaban, iyadoo ay jirto qorshaha ka bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya oo ay Kenya qayb ka tahay iyo amniga gobolka oo aad ogtahay halka uu marayo. sidaad noo sheegtay kulamo badan ayaa maanta dhacay oo isaga wasiirka iyo dhex maray madaxda dowladda. marka ma waxaa la qorsheynayaa inuu degdeg uga laabto magaalada mase wuu sii joogi doonaa? ilaa hadda wasaaradda gaashaandhigga ee Kenya si rasmi ah faahfaahin ugama bixin safarka wasiirka difaaca ee Kenya. laakiin waxaa ila ku dhow safarka wasiirka gaashaandhigga ee Kenya ay sheegeen inay suurtagal tahay inuu maalin kale sii joogo. waxaa jira baysas ama saldhigyo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin koonfurta gaar ahaan Jubbooyinka. ay suurtagal tahayna inuu booqdo laakiin hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye kulamada uu madaxda kala duwan uu la yeelanayay oo ugu horeeya madaxweynaha wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaaraha oo qada xafiiskiisa ugu sameeyay. marka dabcan inkastoo si rasmi ah loo sheegin muddada uu joogay haddana ila ku dhow safarkiisa xubnaha ka midka waxa ay sheegeen in maalin kale laga yaabo inuu sii joogo saxnuunow. Ibraahim Maxamed Aadan wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho oo iga waramayay socdaalka wasiirka difaaca ee Kenya oo ku tagay magaalada Muqdisho maanta ayuu ahaa. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan,
halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa hagaag dhegaystayaal, inta badan warbixinada BBC Somali waxaad si toosa ama iyaga oo si faahfaahsan loo qoray aad ka dheehan kartaan bogga aynu ku leenahay internetka ee bbcsomali.com. markana dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray digniin cusub oo ku aadan duufaanta El Nino ee marar kala duwan wadamada caalamka oo ay Soomaaliya ku jirto digniino joogto ah ay ka bixiyeen. wasaaradda gargaarka iyo wax ka qabadka duufaanada anirahda musiibooyinka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa baahisay deegaanada u nugul inay ka da'aan roobabka xoogan, kuwa laga yaabo inay duufaano dabaylowad ku dhuftaan iyo sidoo kale kuwa kale ay wasaaraddu sheegtay inay uga baqdin qabaan daadad waaweyn oo ku dhufta. agaasimaha waaxda xiriirka bulshada ee wasaaraddaas oo lagu magacaabo Cabdicasiis Diiriye Gorgor ayaan qadka taleefanka kula xiriiray, wuxuuna iga warramay duufaantan laga baqdin qabo nooca ay tahay, ayuuna uga horreyn warbixin inaga siiyey. digniinaha kan waxay ku saabsan yihiin waxaa dalka ku soo wajahan waxa la yidhaahdo iliniya waa qoyaan fara badan oo roobab aad u fara badan iyo dabaylo isku dhex jira weeye meelaha qaarkood. iliniya innaga Puntland ahaan waxaanu heli jiray sanadkii roobab gaaraya 32 milimitir iyo 30 iyo 40 baanu helaynay, laakiin hadda waxaa soo socda roobab ilaa 100 200 ilaa 300 oo milimitir gaaraya. taasaanu dadka uga digaynay. waxaanu leenahay Puntland ahaan wasaarad ahaan waxaanu samaynay waxa la yidhaahdo vulnerability mapping. meel kasta iyo waxay u nugushahay, meel daad u nugul, meel duufaan u nugul, meel u nugul dabaylaha, meel u nugul baddu markay kacdo. xaggee baa ka mid ah agaasime meelaha u nugul dabaylahaas iyo duufaanadaas ee aad ku ogaateen baaristiina? wasaarad ahaan waxaanu ku ogaanay inay u nugushahay 3 meelood. waa 3 xagalka la yidhaahdo Bayla, Dangoroyo, Garacad oo mid ah, Isku Shuban, Gumbax, Xaafuun oo meel kale ah, iyo dhinaca kan buurta tan oo Maraje iyo Af Urur iyo meesha la yidhaahdo Ceel la Helay iyo meesha Midagale iyo Rad iyo Laako iyo 3 xagal baa ugu nugul. dhinaca magaalooyinka waaweyn marka la yidhaahdana daadadka waxaa u nugul Gaalkacyo, Garoowe, Eyl, Qardho, Boosaaso iyo Dhahar. waxaana u sii nugul oo u sii daran dadka barakacayaasha ee meelahaas ku nool. sababtu waa maxay? waxay ku yaalaan meelo dooxooyin ah oo biyo degeen ah iyo waxay leeyihiin togag ama lagag ama faro ay biyo mareenna fara badan bay intaas leeyihiin. marka laga soo tago digniinta aad siiseen dadka shacabka ah, maxaa kale oo aad isku diyaarinaysaan inaad qabataan si aad uga hortagtaan musiibooyinkaas? ka wasaarad ahaan waxaanu diyaarinay dhammaan hay-adaha dalka ka howlgala iyo wasaaradaha dowladda. waxaanu leenahay shirar la qabto asbuucile 15 beri mar la qabto, bishiina mar la qabto, kuwaas oo aanu ku wargelinayno hay-ad kastaaba ama wasaarad kastaaba inay u diyaar garoobaan wax ka qabadka arrimahaas haddii ay dhacaan siday ugu diyaar garoobi lahaayeen. ilaa iyo haddana meel fiican bay wax noo marayaan. task force baanu dhisanay guddi isku dhaf ah oo hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda ka kooban oo hawsha isha ku haya. 24 saacada waxaa la kala qaataa report baa la kala qaataa, waana loo diyaar garoobay. marka sahanka aad samayseen waxaa jira dabaylo iyo duufaano laga yaabo inay xilli dhow meelahaas ka da'aan? hadda waxay saadaashu muujinaysaa in roob fara badan oo muddo dheer soconaya, matalan iliniyadan waxay soconaysaa bisha Oktoobar, November, December, waxaa laga yaabaa 15 January inay gaadho. kama muuqdaan dabaylo xoogan oo wax dhibi kara, waayo dabaysha waxaa lagu cabiraa mar haddii ay 40 km/h wixii ka yar xawma keenaan, laakiin 40 hadday kor u dhaafto 60 50 ilaa wixii ka sarreeya ayaa dhib keena. hadda dabaylo fara badan oo ka cabanaa ama ka baqnaa ma muuqdaan, laakiin waxaa jira xilli fara badan roobab da'aya oo keenaya biyo fara badan inay dhulka yimaadaan, ka bacdina daad fara badan uu ka dhasho. taas weeye midda dadka aan uga digaynaa.
maahan ma biri iyo saadama iyo wax asbuuc dhacayana maahina waa ilaa 3 bilood arrin soconaysa marka dadka waxaanu ka daynay inaanu heegan gelino oo dhab ah waayo muddo dheer weeye waxaanu isa ku haya ka digtoonaada ka taxadara مثلا reer miyiga oo kale waxaan ugu baahnaa inay tawaga iyo biyo mareennada iyo dooxooyinka ay ka baxaan oo xoolaha meel taagan oo sare ama qara ay geeyaan sidoo kale badda dadka kalluumaysatada waxaan kula talinay inay agabka doonyaha iyo kalluumaysiga iyo qalabka lagu kalluumaystada ay ka taxadaraan badda biyaha baddu 2 mitir bay kici karaan oo kor u kacayaan taasoo waxa ka iman kara waxyeello haddii aan laga taxadarin cabdicasiis diiriye gorgor oo ah agaasimaha waaxda xiriirka bulshada ee wasaaradda musiibooyinka ka hortagga musiibooyinka ee puntland oo khadka taleefanka igu warramayey ayuu kaasi ahaa markana hogaamiyaasha 130 dal oo ka kala socda afrika koonfurta ameerika iyo dalal kale ayaa isugu yimid shiinaha kulan ay soo qabanqaabisay dowladda shiinaha oo lagu xusayey 10 guurada qorshaha shiinaha ee horumarinta kaabayaasha adduunka ee loo yaqaano BRI ayay isugu yimaadeen wadamadaasi Soomaaliya waxaa uga qayb galay sanadkan safiirkooda u fadhiya shiinaha Cusmaan Cabdi Xasan ayaa waxa uu weydiiyey Jibriil Maxamed Saciid Afyare oo ah agaasimaha iskaashiga caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ka qaybgalka shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay dowladda Soomaaliya wafdiga kaga qaybgali lahaa Soomaaliya waxaa hogaamin lahaa wasiir dowladeena Soomaaliya ee arrimaha dibadda kadib aduu dibadhac baa ku yimid kadib asagoo ka qayb galay shirka xukuumadda aga bilaabmay xamar Soomaaliya ee hanaanka jihaynta dowladda casriga ah marka waxa inooga qayb gali doona oo Soomaaliya matali doona safiirkeena inoo fadhiya China waa tahay marka waxaad nooga warantaa shirka ajandaha ugu weyn muxuu yahay guud ahaan shirkan waa shir dhaca sanad walba ulajeedkiisuna wuxuu yahay in ay caalamka hogaamiyaashooda ay isugu yimaadaan ama ha noqoto dowladaha madaxdooda ama ha noqoto dadka ganacsatada waaweyn taas oo diiradda lagu saaro kobcinta iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga dal walba qof walba dalkii uu matalayay ayagoo halkaa ay isku weydaarsanayaan fikrado ganacsi fikrado iskaashi heshiisyo la kala seexdo ama ha noqdaan heshiisyo bilateral ah ama multilateral ah taas oo dal walba ama hogaamiye walba uu raadinayo in uu uga faa'iideeyo dalkiisa fursado ganacsi iyo saan hore uu kugu sheegay maalgashiyo dhinac walba ah ama ha noqoto dhinaca dhaqaalaha ama ha noqoto dhinaca technologyada ama infrastructure ama dhismaha iyo aduu waxa weeye barnaamij aad u ballaaran oo fursad u ah in adduun weynuhu ay isugu yimaadaan sanadla ah waa tahay Jibriil marka dal ahaan idinka maxaad ka filaysaan shirkan inaad ka faa'iidaan kulley mar walba oo madal saan u weyn oo adduun weynaha oo dhan ay isugu imanayaan faa'iida ku jirta annagu ka Soomaali ahaan madashan ama shirkan fursad weyn ayay inoo tahay aanu ku soo bandhigi karno ama showcase aanu ku samayn karno dunidana aanu la wadaagi karno kheyraadka dalkeena wax soo saarka dalkeena horumarka dalkeena iyo horumarka dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu ay hiigsanayaan oo loo yaqaano wax la yiraahdo developmental strategy centennial vision 2060 ama sanadka 2060 aragtida dheer ee dhaqaale ama horumar siyaasad ahaan ee dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday madaxweynaheena uu ku dhawaaqay taana waxay noqonaysaa inaanu ku soo bandhigno iyo in aanu tusino in Soomaaliya ay diyaar u tahay una furan tahay in la maalgashi lagu samaysto ama investment ayna tahay Soomaaliya dalka runtii ugu habboon geeska Afrika waa tahay ma jiraan mashaariic maalgashi ama xataa kaalmo aad dowladda Shiinaha ka rajaynaysaan inaad ka heshaan shirkan shirar ka horeeyay oo haddaan dib ku celiyo oo 2018 ahaa ayaa Soomaaliya iyo shir waxaa jiray la dhihi jiray China Africa Cooperation oo ay Soomaaliya ka qayb gashay halkaana waxaa lagu soo seexday waagaas heshiisyo bilateral ah Soomaaliya iyo China ma MOU aanu soo kala seexanay heshiisyo waa jiraan heshiis hadda dambeeyay oo China iyo Soomaaliya sanadkii hore ee seexdeen Muqdisho lagu seexayna waa jiray laakiin qaas ahaan madashan oo la dhaho Belt and Road Initiative runtii waa dhici kartaa waana dhici doontaa in aanu heshiisyo halkaa ku seexno ama ha noqoto maalgashi ama ha noqoto trade ama ganacsi ka wada dhexeeya labada dal taariikhda dheer leh kolleyba
waxaan hoosta ka xariiqayaa inuu yahay shir qiimo leh faa'iidadiisuna Soomaaliya ay runtii dalalka kale Afrika ama adduunkaba aanu la wadaagi doonaa duulayna kaasi wuxuu ahaa Jibriil Cusmaan Cabdi Xasan oo wareysanayay Jibriil Maxamed Saciid Afyare oo ah agaasimaha iskaashiga caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ka qayb galayay shir ay soo qabanqaabisay dowladda Shiinaha. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waddanka Shiinahana waxaa booqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaana kulan la yeeshay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping waxaa dhanka kale la sheegayaa inuu sii xumaanayo xiriirka labada wadan ee u dhaxeeya iyadoo Ruushku ku jiro dagaal uu muddo kula jiro waddanka Ukraine ee ay dariska yihiin haddaba warbixin ku saabsan xiriirka labada wadan ayaa waxaa inoo haya Cusmaan Cabdi Xasan Beijing iyo Moscow waxay sheegeen in beec mushtarka ka dhaxeeya labada dal uu kordhayo dekada ay ka gudbaan badeecadaha Ruushka ee webiga magaalada Haybar ee Shiinaha waxay u muuqataa in ay howl badan ka socoto sida uu noo sheegay darawalkan gaariga xamuulka waxaan sidaa digir iyo qamadi dhammaanna Ruushka ayaan ka keenay suuqu sidii hore waa ka fiican yahay darawalada gaadiidka waxay kaloo noo sheegeen in ay shaqo badan ay helayaan hadda ciid iyo dhuxul ayaan Ruushka ka keenay kuwa kalena cunto ayay sidaan waa meel u dhow Ruushka dabaal ayaad kaga gudbi kartaa webiga dhinaca kale webigana waxaa ku nool Ruush waa meel ku habboon in xiriir ganacsi laga dhiso oo u dhaxeeya labada dal marka aad la hadasho ganacsada dhinaca Shiinaha waxay sheegayaan in intooda badan aysan wax weyn hayn xarumo dukaamo halkan ku yeela qaarkood waa la xiray kuwana dib looma furin sabab la xiriira macaamiil la'aan dadkii hore ugu ganacsan jiray hadda waxa ay ka beecmu jiraan gudaha gawaaridooda waxayna sheegeen in ay sanado suuqa u saan ahaa haddana ayba ka sii dartay haweeney waddada ku ganacsata ayaa waxay noo sharaxday koofiyadaha ay iibiso oo mar aad loo iibsan jiray covid kadib xuduudaha muddo ayay xirnaayeen ruush badan ma imaanaynin way xoolo beeleen dagaalna waa ay ku jiraan waa dhago ruusha ka timid oo Shiinaha lagu warshadeeyey waxay sheegtay in macaamiisheeda ay ahaayeen Shiinis iyo Ruush bal fiiri jidadka waa maran yihiin markii hore waa la buuxay la isma barbar dhigi karo hadda iyo markii hore meelaha kale sida magaalada Harbin oo qarni ka hor Ruushka ay aad u deganaayeen ahaydna dhaqankooda meel ay aad uga muuqato dalxiisna loo imaan jiray waxay u muuqataa kuwa la dhacsan ninka ka taliya Kremlinka sida uu qabo dalxiisahan wuxuuna leeyahay Putin gacan bir ah ayuu wax ku qabtaa waxaan kaloo weydiinay sababta uu dagaalka Ukraine u galay wuxuuna ku jawaabay dadka caadiga ah arrimahaasi kama hadlaan Beijing waxa ay caawinaysaa Moscow iyada oo ka gadanaysa gaaska dabiiciga balse xiriirka dhaqaalaha ee labada dal jid dheer ayaa sugaya taas oo ah in ay buuxin karaan xiriirkii dalalka kale dhanka kale dagaalka Ukraine ayaa wali socda dhageystayaal warbixintaas ku saabsan xiriirka wadamada Shiinaha iyo Ruushka u dhaxeeya iyo halka uu marayo waxa ugu dambeeyay barnaamijkeennii dunida iyo maanta oo soo saaray Maxamed Baashi Khaliif oo la socodsiinaya aniga oo ah Saxnuun Axmed inta aan dib u kulmi doono dhageystayaal mar kale waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo